maanta waxaan soo booqanay xarunta loogu diyaarinayo ciidamada qalabka sida agabka qalalan ee raashinka ah annagoo ah gabdhaha sanatarada aqalka sare waxaa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galno oo ka soo muuqano inaan garab istaagno ciidamadeena qalabka sida iyo dagaalka ka socda meel walba oo Soomaaliya ka tirsan oo lagula dagaalamayo cadawga qawaarijta ee al-shabaab oo caadaystay inay baabi'iyaan ummadda Soomaaliyeed maatada caruurta ayagoo cidna u meeldayeynin shacabka Soomaaliyeed gumaadaya waxaan hambaliyo u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab ee lagu ciribtiraayo argagixisada al-shabaab oo ah dad gobolkoodii sii dhacaya waxaan ku boogaadinaa ciidamada qalabka sida inay dagaalka sii laba jibaaraan annagoo ah gabdhaha sanatarada aqalka sare garabkoodaan taagannahay maanta waxaan soo gaarsiinay deeq raashin ah oo aan ugu talagalnay ciidamada si aan uga qayb qaadano u muujino garab istaagooda maama Jawaahir oo ah hogaamisada dhiirigelisada u istaagsan habeen iyo maalin siday u garab taagnaan lahayd ciidamada qalabka sida dhammaan siday sanataradii hore sheegtay gabdhaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay soo garab istaagaan ciidamada dagaalkan waa dagaal jihaad ah cid walbana ay ajar ka helayso inay ummadda Soomaaliyeed nabad ku naalooto u horseedaya shabaabna waxaan leeyahay gabalkiina waa dhacay hore u sii socda intaada dhamaaninna isa soo dhiiba insha Allah garabkiina soconaye geeshaygo guuleysta guul lagu raayo guuleysta